murtida maanta aynu halkan isugu imaan jirnay sheekooyinkeenii saddexda ahaa ee ku saabsanaa nolosha iyo qaabka loo noolaan hayo waxyaalaha xun iyo waxyaalaha wanaagsan. Waxaan ku soo qaadanaynaa maanta saddex. Taladu waa saddex. Mar aad garan weydo talada, waa mar aad garan weydo talada, iyo mar aad gaari weydo talada, iyo mar ay kula gudboon tahay taladu. Saddexdaa weeye taladu. Aad garan weydo taladaada waxa weeye marka aad garan weydo wixii ku wanaagsanaa ee taladaadu ay ku habboonayd iyo dariiqii aad u mari lahayd iyo sidii wanaagsanayd ee aad u gudan lahayd hawlaha taladaadu ay ku tilmaamayso ama ay ku wanaagsan tahay. Waa xilliyada la dhaho kale dhalinyaradu intay geed ka booddo ayay tala ka booddaa. Xilli fara badan waxaa jira taladaada adiga oo toos lagugu sheegay saas lagula taliyo si wanaagsan ay tahay inaad intaad ka booddo ood gees ka marto aad samayso wax aan ku habboonayn taladaadii oo sidaas darteed aad taladaadii garan weydo ayna faraha kaga baxday. Waa mar hadday taladaadu faraha ka baxdana dee farahay ka baxday arrintaas waad ku dhibaatowday waadna ka dhacday arrintii taladaadu ku wanaagsanay. Waa mar labaade mar aad gaari weydo taladaada tabar baad u weydayba wixii aad ku tashatayba tabar baad u weyday ama dhaqaale ahaan ha ahaato ama xoog ahaan ha ahaato ama haddii la kusoo geli dadaal ahaan ha ahaatee talada iyada waad rabtay inaad qabatee waad gaari weyday waad gaari weyday. waa marka kale mar taladaadii adaa garan waayey oo haddaad garan weyday dee way ku dhaaftay. Marna waad gaari weyday oo taladaadii adoo garanhaya siday ahayd iyo dariiqii u wacnaa ayaad gaari weyday. waa mar kale. waa mar saddexaade waa markay kula gudboon tahay taladu ee inaad qabato aad dhab siiso taladaada ku dhegto ilaahay kuu idmo. waxaa la dhihi karaa dadka intiisa badan maba haleelaan markaas in yaroo ilaahay waafajiyo ilaahay baa waafajinta leh inta ilaahay waafajiyo unbaa ku guulaysata taladooda marka ay la gudboon tahay inay ka faa'iidaystaan. dadka intiisa badan maba helaanba in yaroo ilaahay waafajiyo oo idamka ilaahay ku helay ayaa ku guulaysta taladooda la gudboon inay dhab siiyaan. waxa weeye marka adiga waxaa lagaaga baahan yahay taladaada inta aad garan waayi lahayd isku day inaad garato. ha garan waayin weye taladaade bal isku day inaad garato wax rogrogto. waa kow. inaad gaari weydo ha uga niyad jabin ee isku day inaad gaari karto oo taladaadu aadan gaari waayin. waa saddexe isku day way kula gudboon tahay yayna ku dhaafin dhabsii wixii kula gudboon oo qabso si uusan kugu dhaafin. dulucdu sidaa weeye. maahmaada aynu ku darayno aan raacinayno barnaamijkeennan murtida maanta waxaa weeye talada adaa ku noole iyadu kuguma noolo. sababtoo ah dee taladu adaa wax ka faa'iida ama wax ku qabsada ama ay hawl kuu fulisaa ee iyadu adiga hawl kaama qabsato waxna kaama faa'iidee. ninka talada wanaagsan qaatay ee ku guulaystay ee wixii uu rabay qabsoomeen ayaa ku nool. taladu wax nolol ah kuma qabto ninkaa isaga ah unbaa ku nool. marka talada adaa ku noole iyadu kuguma noole ilaasho oo taladu yay ku dhaafin weeye dulucda barnaamijkeenna murtida maanta iyo maahmaahda aynu ku ladhnayba.